dad kamid ah ayaa contributionka gaarigaaga wax ka bixiyay sidaad ii sheegtayna 9500 ayaad gaarigaaga ku gatay waxaan andamacsanaana waa inaan $20,000 kuu soo diro maanta waxaan halkan ku hayaa 15,000 ka mid ah lacagihii aan soo aruuriyay barqadhu ku socon ku leh taas haddii ay fiican tahay ku socon ma awoodo ra'iisul wasaaraha aan wasiirkiisa ahay inaan mushaarka xukuumadda aan wasiirkiisa ka ahay 3,000 ka mid kuu soo diro saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu xaqa ku tuso garabkaaga galo bismillaahi raxmaani raxiim sida laga warqabo maalmahan waxaan ku maqnaa safar deegaan doorashadayda dowladda Hirshabelle waxaana uga qayb galnay damaashaadka munaasabadda sanad guuradii 5aad ee dowladda Hirshabelle waxaan rabaa maanta marka soo noqoshadayda inaan ka hadlo arrimo maalmahan taagna oo ku saabsan dad ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhibaato ka soo gaartay deegaanadii ay ka deganayeen Somaliland laascaanood qof waliba damiirkiisa qofna waliba dadnimadiisa ummad waliba sidii ay u fahamto islaamnimadeeda ayay qosaysaa marka laga soo tago dowladda iyo maamulada dalka ka jira waxaa si gaara ii taabatay hadalkii ka soo yeeray in adeerkay xildhibaanka aqlabiyadda codka reer Somaliland lagu doorto barqad jaamac bato uma taageeraynin inuu Somaliland yahay laakiin waxaan u taageeray inuu dhiigayga yahay in adeerkay yahay oo aan isku hayb dalad ka wada tirsannahay daladaas waxaan ogahay inuu xaraf diina idheer yahay maadaama uu 114 cadadka quraanka uu xafidsan yahay oo xaafid noqday anigu waan aqriyaa markasta quraanka ilmahayga hal gabara ku jirta inta kale waa wiilal 3 jeer ay dhamaysay qof la arko intuu ilaahay geliyo zaytuuni isaga iyo kuwa la midka xaafidiinta ah na waxaan leeyahay ilaahay ha u siyaadiyo annagana allah nasi laakiin cilmiga inuu wax ku taro diini iyo maadi ayaa haboon waliba hadda tahay qof islaam damqashada dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay u damqadeen dadkaas wixii ku dhacay barqad ma garan waay barqad ma garan waayin inuu haddana sii abbaaro ra'iisul wasaaraha dalka barqad ma garan waay laakiin xanfalay baa qaadataan leh ilaahayna ha ka soo celiyo naxariistaas qalbigiisa ha u geliyo waan ogahay siduu u hadlay waan dhageystay anaan waqti u haynin haddana meelo badan ay iiga soo dhacaysa oo la iiga soo diray
markaan dhageystayna barqaduhu ku socan ku leh saas haddii ay fiican tahay ku soco barqaduhu xusuusnow dadka Soomaaliyeed dunida meel shay ka joogaan ayaa duca lagaaga soo aqri inta codka ku siisay waxaa ka sii dadaal badnaa inta duca habeen iyo maalin kula joogta oo ay ka mid yihiin dadkaas oo ay ka mid yihiin dadka ay ka soo jeedaan barqadow adigii dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hore waxaan u ballan qaaday baabuurkaasoo dareenkayga bedelay markii aad gaarigaaga u gaday dadkii codka ku siiyey ee dhibaatooyinka gaarka kuwa maray sida kuwa baahiyaha gaarka qabay iyo kuwa kugu umulay codbixintaada aniga ballanqaadka aan ballanqaaday account Khadiijo leedahay lacag ku jirta ma ahayn waxaan ballanqaaday dadka aan saaxiib badan waa nasiib daro dadkaas dadka heybtooda dad ka mid ah ayaa contributionka gaarigaaga wax ka bixiyay sidaad ii sheegtayna 9,500 ayaad gaarigaaga ku gatay waxaan andamacsanaana waa inaan $20,000 kuu soo diro maanta waxaan halkan ku hayaa 15,000 ka mid ah lacagihii aan soo arooriyay oo muddo iyo agtaal waxaan la sugayay inaan ku daro 5,000 oo iyadoo 20,000 aan kuu soo diro in adeero lacagtan waxaa ka mid ah lacagta aniga aan ku daray oo ah $3,000 ka mid ah waana mushaarkii iyo wasiirnimo aan ku qaadanay 12,000 6 qof food oo aan saaxiibo iyo ehel nahay iyo tol siyaasadeed ayaa min 2,000 aan ka qaaday waxaan ula soo daahayna iyadoo lagu leeyahay aawa Khadiijo baabuurka ay kuu soo dirtay inaan 20,000 gaarsiiyo oo gaari muuqda aad ku gadato maanta dad heybtaas ka mid ah oo saaxiibanahay lacagta aan ka soo qaado aniga 3,000 oo 5,000 ku jirta waxaan samaynayaa dadkaas guddigii gurmadka koonfur galbeed u magacawdo ayaan ku wareejin doonaa saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu xaqa ku tuso garabkaaga galo ma awoodo ra'iisul wasaaraha wasiirkiisa ahay inaan mushaarka xukuumadda aan wasiirkiisa ka ahay 3,000 ka mid kuu soo diro ma awoodo saaxiibadii ila damqaday markaan u sheegay oo dad heybtaasi ka mid ay ku jiraan inaan ka soo qaado waxa ay ka wada xanuunsanayaan ayaga iyo Soomaali inteeda kale inaan kuu soo dirana ma awoodo dadkaas iyo intii kale oo dhibaato qabta waxaan leeyahay ilaahow ummadeena badbaadi ilaahow gurmad iyo gargaar gacan weyne gacantaada ku sii oo nagu wada sii wasaarad gargaar ahaan wixii aan awoodno dhawaan ayaan gaarsiin doonaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedyada kale oo ay soo gaareen dadkaas haddii Allah awoodo la ogolaado wabillahi tawfiiq